السلام عليكم سومالي وين ملك سادونك كجوجتid waxaan idin sheegaynaa anigu waxaan joogaa gobolada dhexe gobolka Gaalkacyo waa 2004 waa bishii 14 bishii labaad 14 keedii 2019 waxa la joogaa maalintii Soomaaliya khayraadkeeda la soo bixi lahayd bari iyo badba xilligan waa ciidamo ku filan iyo shacab ku filan iyo dawlad ku filan iyo kalsooni iyo meel walba waanu haysanaa waxa la doonayaa in khayraadka dalka aanu soo saarno adduunku noo yimaado adduunka aan wax la qabsano gobolka Gaalkacyo ilaa mudug waxa ku taala 56 isgoys oo la yiraahdo jidka Ameerikaanka la yiraahdo kulli waxa ku wada jira khayraad baa ku wada jira isaga u go'an tahay inuu la soo baxo annaguna diyaar baan u nahay inaan la xisaabtano dalkayaga iyo dadkayaga iyo dhaqankayaga iyo diintayadana aan ilaashano marka maanta waxa la taagan yahay xilligii ciidamo ku filan shacabiyad ku filan maamul ku filan talo ku filan kulli waanu haysanaa marka Soomaali weyn raali waxay ku ahaanaysaa in khayraadka aan la soo baxno dalkeena iyo dadkeena iyo dhaqankeena iyo diinteena aan waardiyeysano ku shaqaysano kana shaqaysano ilaahay idinkiis marka halkaas bay maraysaa ilaahay idinkiis marka wixii kale oo siyaadaha oo adduunka ka jira ama siyaasadda waxaanu leenahay tani way isbedelaysaa dawladba maalinba dawladba imaanaysa hadda mid baa taagan mid kala imaanaysa laakiin taas oo dhan waxa ka qaalisan shacabka calanka dalka dadka ciidda anagu waa la soo dhaafay xilligiina la gumaysan jiray ama gumaystu wadanka haystay waa la soo dhaafay adduunku wuxuu taagan yahay maanta wax la yiraahdo dimuqraadiyad horumar wax wada qabsi cadaalad halkaas ay maraysaa raas Kambooniya raas Casayr gobolkaani waa ku filan yahay difaaca dalka iyo dadka iyo diinta intaba waligiisna waa ku filnaa gumaystana iyo kuwana dhacay kuwana boobana nooguma iman karaan ilhaamada kale waxa ku soo haray badda waxna loogama xadi karo bariga waxba loogama xadi karo dhaqankeena iyo diinteena lama xadi karo marka ku kalsoonaada adduunka meel kasta aad joogtaan shacabka Soomaaliya oo haysta aqli ku filan siyaasad ku filan ol iyo nabad kama liidano adduunka dalkiisa dawlad walba shacab walba dalkiisa waa difaacda haddaan dawlad weyna shacabka difaacaya marka waa inaan ku kalsoonaataan hadda adduunka ka qayb galnayo baarlamaanka adduunka ka qayb galno Mareykanka ka qayb galnayo adduunka oo dhan ka qayb galnay iska badaaba oo siyaasadda adduunka iyo wadanka adduunka aan dhex galnay iska dhaafa koolka ugu sareeya anaga haysana marka neeba halkaas waxaan ku joojinayaa uga gudbahayaa fikirka aan ka qabay khayraadka dalka waxa ku saaray dawladdu waa xumaan kartaa shacabkuna waa kiisi shacabka ka ogolaan dawlad xun marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh buuqay iyo dabdamiski oo ciidan iyo biyaha lagu daminayo oo wax dabdamis aysan jirin wax nafa meeshan kuma saameyn maysa ku yeelan ilaahay baa ka badbaadiyay waa gartay saameyntu ku yeeshay ka waran xilligan dabka inta soo gaaray iyo muxuu ku kacay saameyn dhaqaale maan saameyn nafeed midna ma yeelan meesha intaas ilaahay uga mahadinayna alxamdulillah adeeda uma santaay dabkii waa kaas hadda wabahaya dhalinyarada si wax loo damiyaa la garan laayahay hadda waxna la iskuma sheegi karo dadkii qof walba wuxuu jecel yahay inuu wax damiyo rabaa dhibaata meeshan ma hadda dadka haysata caalamka dadweynaha dawladda federaalka waxa ka codsanaynaa in la ku taageero dabdamis hanala ka soo gaaro
magaaladu kala baro bar si saa'id ay u gubanaysaa xaafadda hadda gubanaysa xaafad casri weeye waxa la yiraahdaa kabax xaafadda xaafad culus weeye qasaaraha ka dhashay waa qasaare maaleed wax dhimasho iyo dhaawac midna ma jiraan laakiin dabdamiye la'aantiis way wax dabka u siyaada maaha dabdamiye haddii la heli lahaa mar inuu dimi lahaa meeshan waa kaalin shidaa uu ka kacay dabka waa maasan tahay weli waxaan ku dhex jirnaa dhalinyaradii oo goobjoog ahaa xilliga dabka ka kacay xarunta raxmaan raxiim meesha waa meeshii qasaaraha ka kacay oo jeedaan meesha waxa ku gubatay guryo badan hanti fara badan aad u gubatay waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka dowladda galmudug intaba kala soo gaaraan qasaaraha ka sii badan in dowladda kala soo gaaro intaas baan ka codsanaynaa dowladda galmudug alxamdulillaah waxa caawa dab ka kacay magaalada Gaalkacyo wadada Sodonka loo yaqaan oo aada golol u baxda meel maqsina oo shidaal ku jiray baa dab ka kacay ilaahay mahadiis hadda waan ku guulaysanay dadkii dadweynihii shaqeeyay iyo ciidamadii iyo dhammaan waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibkay maayirka degmada Gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keenay baabuurkii dabdamiska ahaa oo aan arrintii ku soo afjirnay ilaahay baa mahad iska leh ilaa hadda wax dhimashaa ma jirto laakiin hanti fara badan baa ku baabaaday intaa allaha nooga sinto ku soo dhow gudoomiye